بسم الله الرحمن الرحيم مالين وناكسن صاحبتنا نقل حريرة برتنا فيسبوك قالك ميديا اسكو سو نقد وناكسن oo xiiso badan war rajeynaya adigoo caafimaad qaba in aad halkan si toos ah iga daawanayso sida aad inooga barateen waxaan halkan mar walba idinkaga soo gudbinaa xogaha degdega iyo waliba waxyaabaha aan isleenahay waa ay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalkeena hooyo waxa aan maanta idin wadnaa sida uu qorshuhu yahay kana muuqata boorka waa dawladda Turkiga oo Soomaaliya ku wareejisay qalab lagu ogaanayo diyaaradaha wadanka shisheeye ee ku soo xadgudbaya hawada Soomaaliya qalabkan maxaad ka ogtahay waxa uu qabanayo waa kuwa wadamada xilligan ay doonayso in Soomaaliya ay ku beegsato maxaad isleedahay qalabkan haddii Soomaaliya xilligan oo guud ahaanba lagu wareejiyay talaabada ugu horeyso way ku qaadi doontaa inta shay uu ka kooban yahay qalabkan maxaad ka taqaanaa xog ayaynu daawadayaal idinkaga haynaa iyo sidoo kale waxyaabaha xilligan dawladda Turkiga ku dhaliyay in qalabkan Soomaaliya ay ku wareejiso maxaad isleedahay xilligan qalabkan intiisa badan waa uu anfacayaa goorma ayaa Soomaaliya la keenayaa waa kee qofka xilligan Soomaaliya matalaya ee qalabkaas lagu wareejiyay waxaan idinkaga soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay oo aan isleenahay runtii daawadayaasheena waa kuwii maanta ugu badnaa abid waxyaabaha aan halkan soo gelina kii ugu farxadda badnaa maxaan yeelay qorshayaal soo socda in badan ayaan idinkala hadlaynay balse tan waa mid Soomaaliya lagu wareejiyayba balse marka hore muuqaalka noo sheer garay haddaad jeceshahay dib u dhiska iyo soo kabashada dalkeena hooyo kana qayb qaadanayso horumarinta wadanka muuqaalkana waan rajeynayaa inaad like saari doontaan isku soo noqod wanaagsan maalmihii ugu dambeeyay dawladda Soomaaliya waxaa jirtay in waxyaabo badan markaasi laga caawinayay oo ay ka mid yihiin dib u dhiska iyo waliba soo kabashada dalkeena hooyo Soomaaliya waxa ay maanta gacanta ku dhigtay mid ka mid ah waxyaabaha aan isleeyahay haddii xilligan sida ay tahay loo isticmaalo guushii ugu weyneed ayay gaaraysaa waxaa qalabka xilligan Soomaaliya lagu wareejiyay lagu sheegay in lagu beegsan karo diyaaradaha dalalka shisheeye ee ku soo xadgudba hawada Soomaaliya 7 fareem ayuu leeyahay ama 7 badhan qalabkan yar waxa lagu xirayaa xarunta ama wasaaradda hawada iyo markaa ee dhinaca duulimaadka garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee Muqdisho ayaa laga surayaa 7 qayb ayuu leeyahay oo midba midka kale loo isticmaali karo ku xadgudubka hawada ama dalalka shisheeye ee ku soo xadgudbaya qayb waxa uu si toos ah u bidaaminaya in diyaaradaas aysan soo gali karin qayb in lagu furo shucaac ama markaasi in aysan hawadaba markaasi aysan waxba ka arki karin oo meesha ay joogto diyaaradda aysan kala garan karin qayb xitaa waxa ku jirta oo biyo lagu furayo diyaaradaasna ay qatar galayso qaybna waa qayb emergency ahi oo iga noqo ah qaybna waa qayb markaasi kan wax gumaada ah inta badan marka 7daas qaybood sida qubarada caalamiga ee xilligan dawladda Turkiga ka socda ay iyagu ku shaaciyeen barahooda waxa inta badan la isla dhaxmaraya in qalabkan Soomaaliya muhiim u yahay dalal shisheeye oo ku soo xadgudbayay sheergaray muuqaalka sheergaray ma iscelin karo maanta farxad darteed awgeed waxyaabaha marka qalabkan lagu sheegay in ay tahay in Soomaaliya maalmihii dambe dawladda shisheeye ay ku soo xadgudbayeen hawadeedu waa iska ahayd mid la soo galayay xitaa hadda kadib Mareykanka marka ay duqeyn sameynayaan waxa ay ku qasban yihiin inay amar ka qaataan dawladda Soomaaliya maxaa yeelay qalabkan waxa uu la shaqeynayaa ogolaanshaha marka laga helo haddaanan ogolaansho la helin isaga ayaa xitaa si toos ah isu maamulaya waxa lagu wareejiyay safaaradda Turkiga aynu ku leenahay ee Soomaaliyeed safiirka ayaa gacanta ku dhigay maanta ayuu si toos ah ula wareegay guud ahaan Soomaaliya waxa la filayaa in uu yimaado maalmaha soo socda taas meel ku qoro maanta injineerada rakabi lahaana safiirka ayay soo raacayaan Mahmad Yilmaz oo ah safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayay toos marka loogu wareejiyo isagu ku wareejin doono madaxda
hadda waxaa si hordhac loogu wareejiyey dukumentigii qalabkii guud ahaanba ay yeelaan safaaradda aynu ku leenahay turkiga ee soomaaliya. waa xoog maanta aynu is leenahay farxaddii ugu dambeysay soomaaliya meel walbo ay joogto. waa guul, waa qarannimo, waa ka guulaysiga cadowga, waa ka guulaysiga dalalka shisheeye, waa ka guulaysiga cid walba oo markaasi dalkan isku dayeysa inay iyadu markaa qalqalgeliso. waa jabka iyo niyad jabka dalalka shisheeye, waa qalbi jabka Kenya, waa niyad jabka dadka u shaqeeya dowladaha shisheeye. muuqaalka sheergaray aynu ka qayb qaadano dib u dhiska dalka. guud ahaan ma doonayo inaan halkan kula wadaago dagaal ayaa dhacay, ma doonayo inaan halkan kula wadaago wax dalkayga dib u dhigayo. kuwa mar walba fariimaha dhiirigelinta ii soo dirana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin, waan idinka qabaa 100%. muuqaalka noo sheergareeya. su-aashaan idinkaga tegaya waxay tahay qalabkan dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigtay, maxaad is leedahay kow tallaabada ugu horeyso dowladda dalka ay ka qaadi doonto? waan kaa rabaa dalkaas ayay tallaabo ka qaaday bas. 2 maxaad is leedahay Soomaaliya xilligan wax kale ayay u baahan tahay oo baahi weyn ayaa taagan? 3 yaa lagu ammaanayaa? madax badan ayaa dalkan soo martee, yaa si gaar aan ugu ammaanaa? 4 dadka dowladaha shisheeye u shaqeeya xaalkoodu maanta waa sidee? wax yar in yar ka cabir. muuqaalka noo sheergareeya, aynu ku wada shaqeyno ballanteena inay ahaato horumarinta dalka iyo dadka. waadna mahadsantihiin.